إلهي ما هذا كجارته السمادي بنتلان أو قيمها بدنا أو شرفت لها أو انتقال الله ونحرسته iyo gabdhahi Puntland ayaa Puntland aasay naftooda iyo maalkooda iyo juhdi badan iyo aqoontooda geliyay sidaa daraadeed bay ummadda Soomaaliyeed waxay haweysteen dawladda federaalka Soomaaliyeed inay dhalato waxa sharaf leh oo qiimo leh oo maanta la aamini karaa gabdhaha Soomaaliyeed Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa gabdho isku xiran waa gabdho aan dagaalamin waa gabdho aan waxba isu qabin waa gabdho isku faraxsan tii la magacaabo baarlamaan loo magacaabo iyo tii wasiir loo magacaabo gabdho ku wada faraxsan waxaan muujinaynaa gabdhaha dawladda federaalka Soomaaliyeed baarlamaanka ugu jira hambaliyo iyo bogaadin iyo kuwa loo doortay wasiirada ayaanu muujinaynaa gabdho naga tirsan inay hal mar loo istaago dareenkayaga iyo farxadayada iyo sidaan inii jecel lahay maantay waa daawanaysaan haddaad dibad jirtaan iyo haddaad dal joogtaan gabdhaha Soomaaliyeed oo loo magacaabay dawladda federaalka wasiiradooda waa gabdho anigu in badan aan ka aqaano weeye waa gabdho amaanadii loo dhiibo oo loogu tagi karo ummadda Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waa xajin karaan sidaanu aaminsanahay xaqqa Soomaaliya ama waxa Soomaaliya oo maanta ay hayaan waa gabdho xajin kara il daloolana aan laga heli karin meeshii la rabana ka soo bixi kara إلهي ما هدي سوية دولة يدا يا وسيرة يدا هوانك أو ما أنت الناس صورت جلي مدحوينها يا بنتلان يا وسيرة يدا هوانك بنتلان أو الناس صورت جلي حفلة دان قاعد وروح بدنا ورده هوانك بنتلان يا وسيرة نوه جامين يسأل سوني الحمد لله رب العالمين وإن تاجر صنعي وإن تشعلنا هاي ولا لها ياتين أقوم بدن باهلين هاي حسن عبد الخير آد بانو مهدينا يا قبلها وصوح ولا قبلها أنو نقانو ويا أقوم بيصل أو تربية له أو بيصل أو مدة أمانة ده حكين كرتا كراستنا وحوي مجا أي شرف مدة الصومالية دو كان كرا قبلها وحوي وقبلها ما أنت كصوبي كرا سورة كان كرا ومدة الصومالية أمانة لودن وحوشين كرا وحنو ملينا يا هدي ترتم بين كوشنا قبله إنه وسير هاي ما أنت أمد الصومالية مال والبأبار إيو دبات إيو علاد بيكوكلا قرصوي هند بدها قاربا بد كل انتي قاربا إسكاب على قاربا رجك من أمد الصومالية ما أنت إنه يمان عندك كذا كوي سكان لها وإن نقطان قبلها وسير لسان إنه كفر حني وإن أنا جرا نوع أبال قدام baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa walaalaha iyo baarlamaanka noogu jira oo aanu aad u jecelnahay inay ansixiyaan dawladda baarlamaankeeda gaar ahaan gabdhaha meesha ku jira daraadood waa inay ku ansixiyaan waa hooyadood waa walaashood gabdhaha baarlamaanka noogu jira dawladda federaalka deeqo wasiirada haweenka deeqo qofta la yiraahdo khadiija maxamed diiriye iyo gabdhaha dhamaantooda dhan waa gabdho xul ah Soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeyn kara lana arki karo muraayada Soomaaliyeed laga arki karo iyo dawladda Soomaaliyeed hambal yaani leenahay soo dhawaada noo imaada ummadda Soomaaliyeed
badan oo mar walba halgamayaala oo mar walba u taagan danta guud aad baan arrinkaa ugu faraxsanahay uguna diirsaday waxaanu halkan isugu nimidna maanta waxa weeye inaanu u bogaadino walaalahanaga gabdhaha wasiirada ee federaalka dowladda Soomaaliya waana mid runtii inaga aad noogu weyn haddaanu nahay reer Puntland sanadkii hore kolkii la isu diyaarinayay in la soo saaro xildhibaanadii dowladda baarlamaanka baa waxaa jiray haween badan oo halkan yimid isla markaasna ka qayb qaadanaya ololihii iyo habkii haweenka ay siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen waxaa jirtay ragga markay siyaasadda soo galayaan inay loobi galaan ama loo qareemo ama odayadii u doodaan ama meelo laga galgalo ay jiraan dhankii siyaasadda ama dhankii madaxda ha noqoto ama dhankii qabiilka ha noqdo ama dhankii odayada ha noqdaan laakiin haweenka waxay ahaayeen iyagoo aqoon leh iyagoo xirfad leh iyagoo khibrad leh in mararka qaarkood wax meelaha u galgalaya oo u doodaya inaanay jirin waxaanu keenay marka inaga in haweenayda rabta inay xildhibaanad noqoto ay horta ummadda soo hor istaagto ay u sheegto inay inta soo hor istaagto ummaddeeda ay u sheegto rabitaankeeda ay u sheegto una sharaxdo halka ay hiigsanayso sababta ay u hiigsanayso macnaha iyo isbeddelka ay rabto inay ummadda u soo kordhiso iyo sababtay uga duwan tahay hogaamiyayaashii horeeto taas ayaa keentay in haween badan ay jaamacadaha tagaan dhalinyarada la hadlaan haweenka la hadlaan halkan la isugu yimaado la falanqeeyo habkii haweenka loo soo saari lahaa natiijadaasuna waxay dhalisay in aqalka sare 30% ay Puntland kaliya noqotay maamul goboleedka buuxiyay sideedaba haddii hore loo soconayo isbeddel loo baahan yahay waa inaynaan aamusin waxaa laga yaabaa intaanu rabno inaan hadalno in ka badan inaanu hadalno in laga doonayo si naloo maqlo qayladannada si naloo ayido loona fahmo hiigsiganaga inuu yahay mid horumar ku dheehan tahay mid danaynaya in haweenka kor loo qaado noloshooda dhaqaale iyo caafimaad iyo waxbarasho ahaan si caruurta ama dhallaankeena beritoole ay u noqdaan dad wax ku oola ay u noqdaan dad lagu talamayo inay isbeddel dhaba la yimaadaan kaasoo ku salaysan kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam lixdan wasiir ee la soo doortay waxay asal u tahay halgankii iyo dagaalankii iyo qayradhaantii haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay u galeen oo muddo badanna soo socotay laakiin dardarteedu aad loo arkay sanadkii horeeto aad baan arrinkaas u bogaadinaynaa waxaan leenahay lixda wasiir xilkiina ilaahay ha idiin fududeeyo haweenay markaa tahay xil hayso wax fudud ma aha waxaa laga yaabaa gabadhaas waxbarashadeeda in lagula dagaalo haweenka ay tahay in lagula dagaalo khibraddeeda in lagula dagaalo horumarka ay keenta in lagula dagaalo laakiin waxaan ku bogaadinayaa walaalahanaga in ay hore u socdaan waayo wanaaga tartiib u fidaa waa biyo dhibqay oo tartiib dhulka u qoynaya laakiin xumaantu way fatahdaan waa webi fatahoo kale laakiin dhibicdaas yartee ballaaranaysa ayaa ka weyn webiga soo fatahay waxa loo baahan yahayna maanta waxay tahay maadaama 6 gabdhood aan helnay markii ugu horeysay ee dowladda federaalka Soomaaliya
خير الله سيو مدحوينها iyo ra'iisul wasaaraha khaasatan ra'iisul wasaaraha runtii isku soo dubiriday barnaamijkaas iyo in haweenka si gaar ah il gaar ah loogu yeesho in maadaama haweenka markii la ansixiyo insha Allah ay u howlgalaan sidii loo aasaasi lahaa siyaasado kala duwan qorshayaal loo dejinayo kobcinta iyo horumarinta haweenka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin ballaarinta adeegyada kala duwan ee loogu talagalay caruurta yacan baa jirta caruur waalidkood la joogo haddana dan yaraa jira oo aan awoodin inay wax bartaan caruur waxaa jira hiigsi sare leh laakiin danta reebtay in caruurtaas aan soo saarno waxaana ku soo saari karnaa inaan hooyooyinkooda qaraabadooda walaalahood aan kor u qaadno noloshooda si markaa caruurtiina ay uga faa'iidaan abaar xun baa waddanka haysa iyo wadamo kale oo islaama ilaahay hanaga dulqaadaan leenahay ilaahay weynaa waaxidka colaadda hanaga dulqaado kala qoqobnaanta iyo faquuqa ilaahay hanaga dulqaado ilaahay weynaa waaxidka kuwa isjecel oo mar walba danaynaya danta guud iyo xaqa ilaahay hanaga dhigo roob baa soo socda insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysto roobkan mid khayr qabana Allah hanooga dhigo tan kaleeto oo rabo inaan idinla qaybsado waxay tahay gabdhaha wasiirada madaxweynaheena madaxweyne ku-xigeenkeena gudoomiyaha baarlamaanka waa bogaadiyeen iyagana runtiina reer Puntland waa dad muwaadiniin oo mar walba jecel horumarka waa tan keentay iyadoo dawladda ku Soomaaliya ka jiraan mar walba dawladnimada u istaagaan wadannimada muujiyaan ayna u muujiyaan cid kasta sidii dadkeenu isugu xirnaan lahaayeen aad baana taa idinku bogaadinaya inaad sii wadaan halgankaas waayo haween badan oo dhalinyaro ah oo halgamayaal ah oo aqoon-yahano ah oo runtii mar walba ka shaqeeya ayaa tihiin sidii haweenka ay magac u heli lahaayeen iyagoo diintoodii dhaqankoodana ilaashanaya bogaadinayno uguna ducaynayno idinkana waxaan idinku ducaynayaa dad xoogooda furan oo karti leh irsaaqadoodu waasac tahay mar walba sidan oo kaleeto u midaysan iskula socdo isugu hiilinaya danta guud in Allah idinka dhigo sidaas ilaahay idinku wada bulshadiina qariga aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh